Bismillaahi Raxmaani Raxiim warbixinteenan maanta ayaynu waxaynu ku dul istaagaynaa Mareykanka iyo Iiraan oo isku birtumanaya qarkana u saaran burburka xabad joojinta jilicsan mashruuca xorriyadda ee Trump oo lagu sheegay mid khiyaali ah iyo waliba afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan oo jawaab kulul siiyay maamulka Mareykanka oo markaasi ku aadan qorshaha Mareykanka ee mashruuca ugu magac daray mashruuca xorriyadda saacadihii ugu dambeeyay ayaa waxaa dhacay waxyaabo aad saameyn badan u leh keeni kartana in xaalka dagaalka uu mar kale qarxo maalmo gudahooda kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu iclaamiyay inuu dhaqaajinayo ciidankiisa Iiraan iyadana ay kaga jawaabtay si lama filaan ah oo waliba xaalka xabad joojinta jilicsan ka dhigaya mid burburta Donald Trump ayaa caalamka ka dhaxsaday inuu bilaabo howlgal ciidan oo ka dhan ah Iiraan oo markaasi ugu magac daray mashruuca xorriyadda ujeedkiisuna yahay in la xoreeyo sida la iclaamiyay maraakiibta ganacsi ee ku xaniban marinka Hormuz si xooga Trump ayaa waxa uu ku andacoonayaa in dhaqaajinta ciidankani ay tahay mid salka ku haysa insaaniyad si uu u badbaadiyo maraakiibta tirada badan oo la dhibtoonaysa inuu ka dhamaado sahaydii ay haysteen balse xaqiiqada ay tahay in siyaasaddu ay dhahayso Washington waxa ay go'aansatay in waaqa cusub ay ku soo rogto marinka baddan ee ugu muhiimsan caalami ahaan isagoo oo markaasi ka gudbaya go'doomintii isaga qudhiisa saaray Iiraan tan iyo bishii Abriil ee ina weydaaratay Iiraan ayaa ku jawaabtay biyaha laguma maamulo waxyaabo khiyaali ah oo la soo dhigo baraha bulshada jawaabta Iiraan maba soo daahin waxaa yimid durba oo lagu dhibciyay dhigaha Trump digniin daran oo markaasi ka timi Iiraan si toos ah waxa uu iclaamiyay madaxa guddiga amniga qaranka ee baarlamaanka Iiraan Ibrahim Azizi oo yiri faragelin kasta oo Mareykanka ku sameeyo nidaamka marinka Hormuz waxaanu qaadanaynaa in lagu xadgudbay xabad joojinta Iiraan waxay fariin luuqadeedu adag tahay u dirtay Trump midaas oo lagu cadeeyay in marinka Hormuz iyo waliba biyaha khaliijka laguma maamulo qoraalo markaasi uu soo dhigo Trump barihiisa bulshada wuxuuna tilmaamay si aan leexleexad lahayn dhaqaaq kasta oo ciidan uu ku fulinayo mashruuciisa ugu magac daray xorriyadda uu la kulmi doono jawaab military oo horin doonta mar kale dagaalka haddaba waxaa horteena ah saacado lagu kala bixi doono inuu Trump guuleysto oo uu dhaqangeliyo mashruuciisa xorriyadda oo ay halkaasi ka gudbaan maraakiibta iyaga oo ilaalo ka ah isla markaana gelbinaya maraakiibta dagaal ee Mareykanku leeyahay ama Iiraan ay ku soo afjarto gacan bira iyada oo difaacanaysa madax banaanida dhulkeeda ee Hormuz midan oo micnaheeda ah in dib loogu laabto dagaal furan kaasi oo bilowday dabayaaqadii bishii Febraayo ee ina dhaaftay dhanka kale sida ay warisay wakaaladda wararka Iiraan ee Tasniim afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Ismaaciil Baqiic ayaa diiday wararka warbaahinta laga faafinayo ee ku saabsan wadahadallada ku saabsan faahfaahinta la xiriirta howlaha kobcinta uraniumka Iiraan iyo agabka la kobciyo isagoo sheegay in Tehran ay hadda diiradda saarayso oo kaliya soo afjaridda dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ku soo qaadeen dalkiisa isagoo ka hadlayay shirkiisii jaraa'id ee toddobaadlaha ahaa Isniintii Baqiic ayaa waxa uu sheegay in Iiraan ay heshay jawaabta Mareykanka ee soo jeedinta Tehran iyada oo loo marayo Pakistan laakiin wuu diiday inuu ka hadlo faahfaahinta isagoo dhaleeceeyay caadada aan dhamaadka lahayn ee dalabaadka xaddaafka ah ee aan xadidnayn ee uu Mareykanku mar walba la soo taagan yahay wuxuu sheegay in Iiraan ay la macaamilayso dhinac si joogto ah u bedelaya mowqifkiisa isagoo intaa ku daray in arrimaha warbaahinta lagu sheegay oo ku saabsan faahfaahinta nuclearka ay inta badan yihiin mala'awaal sida uu sheegay afhayeenka mala'awaalka noocaasi ah wuxuu ku salaysan yahay taariikhda wadahadaladii hore ee diiradda lagu saaray arrimaha nuclearka Baqiic waxa kale uu sheegay in arrimaha la xiriira kobcinta uraniumka iyo waliba agabka uraniumta yihiin kuwa aan la saadaalin karin marxaladan isagoo carabka ku adkeeyay in Iiraan aysan hadda ka hadlayn wax aan ka ahayn joojinta gebi ahaanba dagaalka gardarada ah ee Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iiraan go'aanada ku saabsan jihada mustaqbalkana ee wadahadallada ayaa la gaari doonaa goordhow ayuu yiri markii Tasniim ay weydiisay sababta Iiraan ay ula gorgortamayso dhinac si aan caadi ahayn u dhaqmaya afhayeenka ayaa sheegay in waajibka wasaaradda arrimaha dibadda uu yahay inay raadiso xuquuqda Iiraan wuxuu xusay in inkastoo Iiraan ay waajahayso dhinac dhaqan ahaan aan caadi ahayn
tani waxay ka dhigaysaa mas'uuliyadaha Tehraan kuwa culus, isagoo intaasi ku daray in la dagaalanka cadowga noocaasi ah ay u baahan tahay tallaabo dhab ah iyo weliba diblomaasiyadda Maraykanka lagu waajaho si feejignaan iyada oo markaasi la eegayo xaaladaha jira. Afhayeenku wuxuu intaasi ku daray in wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo ku tiirsan sharci ahaanshaha dalabaadka Iiraan ay dadaal kasta ku bixinayso sidii loo sugi lahaa xuquuqda dalka. wuxuu carabka uu ku adkeeyay in Iiraan ay hubaal ahaan u isticmaali doonto agab kasta oo markaasi la heli karo si ay u sugto danaheeda. Baqiic ayaa waxa uu ku jawaabay hadalkii agaasimaha guud ee hay'adda tamarta atomikada caalamiga ee Rafael Grossi uu ka sheegay Iiraan. Wuxuu sheegay in dib u eegis lagu sameeyay taariikhdana muujinayso in Maraykanka uu ka baxay heshiiskii nuclearka ee la gaaray sanadkii 2015 isla markaana uu dagaal gardaro ah ku qaaday Iiraan. Baqiic ayaa waxa uu xusay in madaxa IAEA laftiisu uu qayb ka ahaa geedi socodka gorgortanka 2 jeer, isla markaana uu si shakhsi ah u arkay dhaqanka Washington oo iska soo horjeeda. Caqabada kaliya ee ka hor istaagtay wadahadalladu inay gaaraan go'aan waa dhaqanka Maraykanka, ayuu yiri.